nin waxaan ku weydiiyey kalamaan ma dhegaysatid war naga tag oo maxaa dhacay mar dambena su'aal ma weydiin kartid sabab kalamaan ma dhegaysatay markaad leedahay maxay sheegtay ma tiraahi horta sheekadan kalamaana markii aad maqashiin how maxaa tiiriya may erti midii miidaysay maahino waryaada ree kalamaan horta waa warramaane wakhti dheer jabhadin wajahaysay dagaalo waxay doonahayeen iyo dantii waayey miya taan jabhad ka soo marnay ilaahayow jabhad dambe ha noo celinin aniga weyga su'aale warkan reer kalamaan waralla yaa u xil saaray war reer kalamaan hoobeetin qoladun waringa lakuwayna gaashan diyaarsaneen horaan waxaa loo yidhi aweesa afkeeda ulweynaa lagu dhiftaa war mahmaadas ma taqaanaa walla weynayey abeesta kucuntay afka uma roona weeyaan waxaan idin idhi abbaarteeda saxdaa cid kastoo arki weyda waa ayaandaradeeda war akhbaarta saxdaa waa la hayaa madaxweynuhu xalay ma seexan aa ku dhaca macbuudkee taleefon buu kula hadlay afarta bayna jaho uhura kenyatuu ka soo bilaabay kadib maamul goboleedyada dhan buu wacay waxa uu yidhi gobashii weli waa fidsan tahay ijiid aan kujiida kuma juri karnee isku kaanya keena buu yidhaahday horta abuuro kenyaati ma maamul goboleedyadow ka mid ahay isagu warniyo madaxweynuhu muuse biixi miyuu la hadlay war anugu waxaan qabaa nimanyo maadaama sacuudigu arigii naga iibsan diidey 10 kunoo orgi inaan turkiga u rarro oo aan hilibka barro saan mustaqbalka uga iibsanno arigan war sacuudigaad hilibka kaga dafadaasa jamaal khashoogi langililee hilibya yaala hilib kale ma koofadaayan waradar adhiga somalilan imaaraadka iibsada horaan waxaa loo yidhi bec baro ama been baro war ari haddii la gadan diido wax kalaan gadanaynaa sagaaradiiaan qadar u beecgayne warnamiya walkalantiha ka bateen gooye waa sagaaradii siinkulbahsada waaya faragalateen ma aha war guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi waraaqda madaxweynaha ka soo baxday kuma qancaynu yidhi dadaalka golaha aqalka sare wado ayayna dhabar jabinaysaa waxaadna moodaa gacan saddexaad inay qortay ebedkay qof 3 gacmood lama arag madaxweynaha jubbalandna wuxuu ku eedeeyey guddoomiyuhu inuu wada hadalka caqabad ku yahay aryadhaha warba ma haysiina shalay waxaa la yidhi ciidamaa isku dhacay jenaraal sheegowna waxaa la yidhi berigow beledka soo galo xabada faniinaa bilaabahaya askariyaa dhimahaya ama islaan shacabahaa dhimahaysa ama gabar iskool ka timid ayaa lagu dilaa ma hay joogto mugga waxaan maqli jira niman ka ray jiray rabee ambii ruqseey ambiiga reeb mugga jenaraal sheegow amba dadka ha laga dhiciyo amba janannimada xanyuub ha laga siiyo war meesha jeneraallada xilka looga qaaday waa puntland saraakiishii ciidamadoo dhan waxay yidhaahdeen shirka cabdiweligaas meeshaan ku qabsaday iyo warka ka soo baxay oo qarindumisnimada ma aqbalayno kadibna cabdiweli xilalkiibuu ka qaaday gebigood war jannanadaada sheegaasa abdiweli derajada ma ka qaada koro shaga fariisisa ka suubii koro bas war jenaraalkii janamada puntland ugu sarreeyey markii darajadiisii lagu qabsaday asaguna kursigii madaxweynenimadu ku qabsaday oo madaxweynu isku soo sharax war ciidankii jubbaland khilaafkaas saameeyeen u malaynayaa xabaddaana ka dhex faniintay marka iyagana jannamada ma hogaaminayey warnamiyaw saraakiilla galan hoosada iyo dhan wada deertiya ka aali saraakiishii koonfur galbeedna gaara godoodii allaari aw shariif haddii madawiinayaasha geedlang nagadi hamiigna ma ku weelano maalangna ma ku weelano godod fiya areen godod faagay ka doorteen saraakiilnimadood ureedaa wasiirka gaashaandhigga soomaaliya magaalada baydhabo ka hadlay wuxuu yidhi diyaaradaan u soo raacnay musharaxa liiraan lafta garaynaan taageeraynaa dawladdaana wadata marka waa la yaabay ma wasiirkaa waalan ma dawladdaa waalan mase anaa waalan ciddii la taageeraya waa la qari jiray annagaa wadanna barqadii isla taagay cadaaladda intaan leega xaggee ka timid war aan halwalmooshiidii weel walaay ka jiro shiife oo laari walaayo ka jiriyaha shiifen war wasiirka gaashaandhigga annagaa wadanna ma dhihine ununa wadanne ayuu yidhaahday niman yahow dawladdu inay wax wadato qalad maaha laakiin lafta gareen iyo baasta inay wadato taasaan la yaabanahay wax karoon maa la waayay war waxaan idin idhi qaraxii sanad ka hor ka dhacay naasa hablood maantoo kale nimankii loo qabtay oo maxkamadda xukuntay weli alla sharciga lagu fulin waa joogaa war aawi cadaaladii madaxweynaha maxkamadda maandhowd u sheegay war nimankaa maxaa loo haystaa ma dadkay laayeen inay dhalaana laga sugayaa waraadhaha dadku waa dhinteene adigu waxa nool ha lagu dara miyaad leedihin waradeero dhowdhowdunbaa meesha ka haysaane somalilan xafiis weyn bay kenya ka furatay war xafiiska cusubmajaadka luugadaa waradeerhana dhex boodine waa safaarad dadban ma garanaysidee safaarad toosaan xabad uga dheefi weyna kenya waxaa la yidhi bannaankiisa maro maradiisa bood ma taawehayso war bannaankiisa mare
maradiisa geedma qabto weye balaayasan qayeertalo ku tuurtee waradeena somalilan war kama haysaane qalab bay keentay taleefanada lagu dhegaysto marka hantiinna waan la soconaynaa maanta wixii ka dambeeya horaa loo yidhi fulayxantii ma mooga war reer hamar may baaraana luguxanta lagu xasuustaa ka weyn bortubaakada taabuugga la yidhaahda ee hindiya iyo kenya laga keeno wasiir maarey waxa uu yidhahdee kansar ayaa laga qaadaa dad badan oo uu ku dhacayna waa aragnay ciddii dambe oo keenta ayadaa tunka laga tumaayuu yidhi aryaa taabuug ciidamadaa dhisan jira shimaytu baa ka naqatay war maareeye wasiirka caafimaadka ee madaxa bannaan miya war adeer wasiir maareeye maanta mafiiquu wato xashiishku guray war hadduu xashiishba gurayey muxuu tubaaka ku diidayaa war walla weye fahmi maysaane waa guddaafadda aryaa guddaafo ina aayay ahayd waaba maqli jirayay warayaantan ganacsatadii madaxay iskula jiraan iyo qoorta iyo luqunta waxay yidhaahdeen guddoomiyaha ganacsada ninka noo ah hadda ganacsadaba maahan taan lacag sanadu akoon ku shubtaa war guddoomiyuhu ma laba shaquu isku qaban karaa inuu guddoomiye noqdo iyo inuu ganacsado horta ganacsi waa iska daba wareeg beesana waa asturasho horaan waxaa loo yidhi buxuu bilaash maahee beesaan la bilbilaa warnimaya horta anigu waan yaabaye soomaaliya meeqa contact group ayaa jirto war wiilkii fogaan eeg baa saaka su'aalii weydiiyey wuxuu yidhi adeer ciidamadii dawladda federaalka oo inay ilay qabtay oo xiray miyaa dawladdeenna federaalka ka amar qaata mayaan idhi maxaa jira hadda waayahay dawladda haddaysan maamul goboleedyada xirxirayn maa la heshiisuu yidhi adeer war dogonsina lankunkan madawiini hiri aykin sheegi warkaas dad haddausan kale adkaa haynin inuu heshiiyaa raysa warnimayo ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed ayaa nabad inoolol ku soo biiray waxa uu yidhaahday waa markii ugu horraysay ee ay etoobiya yeelato golo wasiiro oo kala bar dumar yihiin been badana af soomaaligana goormuu barta war anikiin sheega ma eeray ahuun nabad nolol infalligaale in aan dumar badan infalligaale waari waryaa aryaa ununka waydin falaana ma dhihi kartid oo waa ka shallaayhayaa billah calaykum khuduu maslaxatakum qulub haydeen qulub haydeen qarastaa ku barkatee